sheekh Cabdilaahi sheekh Cali Jawhar oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay ka warmay doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ka dhacday ee uu ku guuleystay xisbiga kulmiye isagoo sheekhu ku sugan dalka Turkiga oo jooga hawlo la xiriira caafimaadkiisa ugu horeyn sheekh Cabdilaahi sheekh Cali Jawhar waxa uu aaminay shacbiga Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka wadani iyo ucud sida wanaagsan ay u aqbaleen natiijadii doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxaan mahad ballaaran halkan uga jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto si gaar ah ummadda Soomaaliland waxaan hambalyeeynayaa madaxweynaha la doortay cusub ee Soomaaliland loo doortay iyo madaxweyne kixi oo ah Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Zaylici waxaan leeyahay xil culus oo weyn baa la idin dheebay xilka Ilaahay ha idin karsiiyo waxaan kaloo hambalyeenayaa axsaabta mucaaradka oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo xisbiga wadani ahaa iyo Faysal علي ورابع يكون حجينكيسا يا عبد الرحمن كحجينكيسا waxa weeyaan inaan ka deerko ayaa maxamed cali weey waxaan iyagana ku hambalyeeynaa qancida ay ku qanceen doorashada ay ku qanceen iyagoo eegaya sharaftooda iyo ummadda Soomaaliland baaqeedii ay soo jeediyeen waxa kale oo sheekh Cabdilaahi sheekh Cali Jawhar dadaaran iyo talaba u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu soo dhiso dawlad kooban oo tayo leh oo dalka iyo dadkaba wax qabadkoodu gaadho waxaan bogaadinayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Zaylici waxaan leeyahay anoo la dardaarmayo madaxweyne ciddii ku dooratay iyo ciddii aan ku dooraninba maanta waxaad u tahay madaxweyne ayaad u tahay ilaahay xil culus baa lagu dhiibay xilka culus ee lagu dhiibay ilaahay ha ku karsiiyo waxaan madaxweyne ku adkaynayaa dadkii ku doortay dhammaantood ma wada aha xul dawladnimada u qalma dhammaantood dadkii ka baydhayna ma aha dad aan ku fiicnayn dawladnimada waxa dawladda ku sareysa daacadnimo iyo ikhlaas iyo dawlad tiro yar oo tayo leh adoon u eegin kani waa kii ku codeeyay iyo kani uu ka codeeyay dad badan waxa jira ka bayray oo laakiin ummaddu ay u arkayso in dawladdu ku soo dartay in sharaf ay leedahay quruxna ay tahay